waxa ku cusub haddii aan ku horeyno selection improvement oo marka qofka ma aragtay tusaale ahaan backgroundka iyo qofka la kala reebayo sida loo doorto ayaa aad loo horumariyay inkastoo ogeydeen السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا إلسر أكاديميك أو أينو مدوكو كلام مقرين maanta waxaan ku eegi doonaa programkan Adobe Photoshop 2023 ayaynu ku eegi doonaa waxyaabaha ku cusub haddii aynu ku horeyno programkan qaabiyadaasu ma aragtay u muuqda waxyaabaha ku cusubna kan ayuu inoogu soo qoray macnaha what's new maxaa ku cusub waxa ku cusub haddii aynu ku horeyno selection improvement oo marka qofka ma aragtay tusaale ahaan backgroundka iyo qofka la kala reebayo sida loo doorto ayaa aad loo horumariyay inkastoo ogeydeen sanadii u dambeeyay 2022 iyo 2022 ba dadku ay aad uga raysteen inay Photoshopka ay gacanta la raacaan oo ay jiraan balse ay mar qura select gareynayaan dabadeedna uu qofka sidaas oo kale halka idinka muuqata uu markaa uga saarayo backgroundka oo si yar oo fudud oo dhib yar aad backgroundka iyo qofkii aad ku kala saari karto waxa ku xiga one click delete and filter oo waxyaabaha ma aragtay sida halkan inooga muuqata waxyaabaha marka uu qofku shay kaga gudban yahay amaba tusaale ahaan dhowr qof aad sawirro la gashay ba qaar kale idinka dambeeya ama kaligaaba sawirro galay dabadeedna qof kale meel kale ka muuqda marka sida yar ee fudud ee halkan ka muuqata ayaad uga select gareyn waana idin tusi doonaa live Gaussian blur isagu waa beta oo wali shaqa ku socota marka inta badan waxa taqaaniin Gaussian blur waa waxyaabaha ma aragtay marka backgroundka oo kale blur la gelinayo ama waxyaabaha blurka loo adeegsanayo ama tusaale ahaan waxyaabo la doonayo inay iyagu si fiican u muuqdaan laakiin waxa ka dambeeya oo yar qarsoomo live gradient beta ka aynu marka hore tagno waka marka isagana waxa weeye waa taa idin muuqda oo qofkii blurkii ayaad ayar kaga saaraysaa sida halkan ka muuqata live gradient beta isaguna waxa weeye halkan ayuu nooga soo baxayaa waa marka ma aragtay iyana waa lagu soo kordhiyay oo imika ayana si fiican ma aragtay loogu soo kordhiyay waxa ku xiga isaguna new natural filter ka hore ayay kuwii horeba u wateen oo ma aragtay tusaale ahaan color ayaa loogu sameeyay waxyaabo oldiya ma aragtay waa iyana waynu arki doonaa gudahaynu si fiican ugu arki doonaa share for review beta waxa weeye iyaga waynu iska ma aragtay waxa weeye waxyaabo ay soo kordhiyeen oo ina fikradahaaga amaba aad ma aragtay si toosa ugu share gareyso waxyaabaha aad qabatay shaqada dadka customerka ku oo kale iyo dadka aad ma aragtay shaqo wadaagta tihiin infedit iyana waa qayb kale oo iyana lagu soo kordhiyay markaynu ma aragtay aynu saa ugu dhufano haddii aan ka laabto waxaan rabnaa wajahadiisa hore say u soo kacayso inaad iyana aragtaan waxa iyana muuqata in ma aragtay laga bedelay qaabkan loo bedelay qaabiyadii hore wax weyn ma aragtay laga bedelay laakiin guud ahaan markaynu isku soo ururino wax weyn oo sidaas u sii badan lama bedelin oo ma aragtay hadda aynu oran karno waxaasa wax weyn oo ku soo kordhaya laakiin xoogay improvement ayaa la sameeyay isaga oo markaa shaqooyinkan iminka aynu halkan waxyaabaha ka tilmaanay iyadoo si live aan uga shaqeynano ayaanu casharada dambe idin kula wadaagi doonaa waa anigu Cabdiraxmaan Ilsar Academic ayaad halkan kala socotaan fadlan haddii aad ku cusub tahay ku soo bir oo ma aragtay si share gareys asxaabtuna la wadaag fikradaadana hoosna gula wadaag waxyaabaha aad tabayso in aad u baahan tahay si aanu halkan cashar ahaan ugu soo diyaarino waa mahadsantahay